بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحاب جنركي وكحرنا مركلي ولا شين ساري مقال عصب حرجينا عفما طبطان أحبابتي إذا مركلي مقال عصب ما شاء الله تبارك الله عيد يا نص دواتي إلى نبدا نوغارسي إن شاء الله تعالى maanta waxaan idin wadaa kastar yar oo aan kasoo tuuray oo ilmaha casri ahaan aan ugu diyaariyay aan jeclaysanaa ila wadaagtaan axbaabteyda qaabkaas ayuu ugu dambeyn kusoo baxay maasha allah tabaarakallah wax fudud waay maasha allah 5 daqiiqo waxaan dhimanaa ilmaha ugu soo kala tuuran kartid maasha allah kulli aan waa ka helay idinkana soo tijaabiya axbaabteyda waad ka wada heli doontaan insha allah qaabkaas ayuu nagu dambeyn kusoo xaj chocolate syrup waxaan kor ugu soo sharaxay waa iska chocolate caadi ah haddii aadan xiisayn chocolate waa iska deyn kartaa wax dhibe ma lahan haddaan waxyaabaha ka diyaariyay qaabkii aan u diyaariyay ka faa'iideysi wanaagsan halkan waxaa ku haystaa caanaha fresh oo 5 liter ka ah qiyaastii 3 qaando sonkor chocolate syrup heelka shiidan iyo waxaan kaloo haystaa allah musta'aan custard powder oo caadi ah intaas ay meesha ku haystaa maasha allah saawada arkaysaan heelkan saxanka ayaan kusoo shuban doonaa insha allah intaas ayaan isku soo diyaarinaya axbaabteyda biidhnillah waxaan rajeynayaa si wacan ila socon doontaan videogan aad ka heli doontaan biidhnillah muuqaalka dhammaysta bilow ilaa dhammaad haatan waxaan bilaabay caanihii caaga ku jira 5 liter inaan kusoo shubo baaquliga qiyaastii 4 bakeeri oo bakeeriga shaaha ayaan isticmaali doonaa insha allah bakeeriga ugu horeeya aan kusoo shubay sidaa wada arkaysaan axbaabteyda 3 kale ayaan kusoo daraa insha allah markaan kusoo daray ayaan isku soo laabaneynaa caanihi ayaan kusoo shubo baaquliga sidaa wada arkaysaan sonkortii ayaan ku daraa haddana insha allah waxaan kaloo kusoo daraa insha allah heelkii shiidnaa haddii aadan heel xiiseynin ama aadan markaas uusan markaas diyaar ku waxaa isticmaali kartaa vanilla nooca boodarka ama nooca kale oo bibiya ah ana deela jeclays maanta inaan ku samaysto waxaan kaloo kusoo darayaa custard powder qiyaastii 3 qaando waaye 3 qaando waaye maasha allah tabaarakallah qaabkaas ayaan iskugu soo diyaarinaa holli lagu jiraa iskuul ma la aadayo dugsi ilmaha guriga iska joogaan marka casri yar hal shay ilmaha way nacayaan marka ugu soo tuuraan isna maasha allah marba wax ay xiiseenaan ilmaha qaabkaas ayaan isku soo dhaxmarinaa insha allah markii xogaa isku milmaan digsiga aan dabka soo saarnaa insha allah weelka aan ku diyaarin lahaa waan ku soo shubaa insha allah axbaabteeda baaquliga ay weli ku jiraan caanihii iyo waxyaabihii kale aan ugu talagalay kastarka inaan ka sameeyo ama labaniyada haddana digsiga dabka ayaan soo saaro waan kusoo shubaa sidaa wada arkaysaan maasha allah qaabkaas ayaan kusoo wadaa axbaabteeda insha allah dhaqaajiskana ma ka joojinayo qasitaanka ilaa ay iska raacdo ama ay kasoo adkaato way kala degaysaa labaniyada ama kastarka uu kala degaa insha allah qaabkaas ayaan kusoo wadaa biidhnillah markii xoogaa isbedesho labaniyada ayaan isku soo laabaneynaa insha allahu tacaala sidaas wacan ila socda insha allah sidaas ayaan usoo qasaya maanta oran insha allah dabkan waa dab aad u hooseeyo waaye dabku waa gaabiyey zaaid maasha allah hadii kale kaa gubanaysaa qaabkaas ayaan kusoo wadaa axbaabteeda insha allah hadda way soo yara adkaanaysaa qiiqa zaaid aba ma aqaan kaamirada kaliya u arkaysaan in kale way soo adkaad hadda sidii uu jacamal ama mishaariye soo taqtaqaysaa kaas saasi soo badbadaysaa maasha allah qaabkaas ay diyaar ku tahay weelashii aan kusoo shubi lahaa oo ilmaha ku siin lahaa isi diyaarsin miiska ii saarayeen waan kusoo shubaa insha allah waxay markay dhulka taala kadib hadii aad kaaga qabowdo way kala adkaanaysaa halkan waxaa kusoo diyaarsaday baaquliyaashii ilmaha aan ku siin lahaa sidaa wada arkaysaan baaquliyaashaas yaryarka ayaan usoo diyaarsaday oo aan ugu shubi rabaa insha allah xogaa yaray dhulka taala hadii aad usii qabowdo way kala kor hadhow wax adeeg iyo waxay kala noqoneen nooc kale intay kulushaan marka weelashaan ugu talagalay aan ku shubayaa kadib markii cabaar dhulka taala wax fridge ma gelinay maadaama ciyaal yaryar ay cabayaan insha allah sidaas ayaan kusoo wadaa axbaabteeda insha allahu tacaala baaquliyaashaan ugu talagalay aan kusoo shubayaa ilmahan maasha allah markii xoogaa yara qabowdo ayaan siinaya insha allah sidaas ay diyaar ku tahay axbaabteeda qaabkaas oo isticmaali kartaa haddii aad rabtidna waxyaabo kale kusoo darsan kartaa sida chocolate syrup hada chocolate-ka iga codsada inaan ugu daro chocolate marka aan kor ugu soo sharaxanaya aan ugu daraa insha allah haddii kale baleenkaas caadiga sidaas iyadoo waa isticmaali kartaa wax dhibe ma lahan chocolate-ka waxna ma ku ziyaadinayo laakiin ilmaha waa iska ogtiin waxyaabo macmacaanka way iska jecel yihiin maasha allah marmar
bishii hal mar camal hadaa u dhexgelisid wax dhibeen ma lahan inkastoo macaanka badan uusan faa'iido lahayn laakiin hal mar oo kale bishii hal mar hadaa u dhexgelisid ama dhowrkii biloodba hal mar wax dhibeen ma lahan qaabkaas ayay diyaar ku tahay axbaabteeda maasha allah hadda waxay soo qabowday maasha allah miiskay weli saaran tahay sidaas ayay diyaar ku tahay maasha allah haatan waxaan bilaabaa insha allah inaan chocolatekii kor ugu soo daadiyo waxyar mana ka badinaayey sharaxaad ahaan leen ka wadaa insha allah ilmahan waxyaabahaas oo kale indhaha soo jiidana aaday u xiiseynayaan marka haddii cuni lahayn xataa way cunayaan markaas haddaa kusoo bilaabaa insha allah inaan chocolatekii kor ugu soo jojooreeyo sidaas ayaan ugu soo shubaa insha allah xabadii koowaad ayaan kusoo shubay tan labaad ayaan haddana ku shubaya sidaa wada arkaysaan chocolatka waxaa la wixii aa haysta ayaa kor ka saaran kartaa wax dhibee ma lahan qaabkaas ayaan kusoo wadaya axbaabteeda insha allah markii aan soo dhameeyo oo aan kulli kusoo wada shubo ayaan isku soo laabanayna insha allahu tacaala qaybtan in ayaan ku jooreeyay beebidan yariista xiraada magacayga xarafka uu ka bilaawday igu jooreeyay marka qaabkaas ay diyaar ku tahay maasha allah qaabkaas ay ugu dambeyn casriyadeena ku idishahay asxaabteeda haddii aad nagu cusub tahay soo dhawo please subscribe haddii horey noola joogto ka hesho muuqaalka like garay asxaabtaada iyo eheladaadana u sii share garay wixii fikradana xagga commentiska igu soo qor fikradiina waa ii muhiim waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad mar walba ila socotaan fariimihiina isugu jir dhiirigelintii ducada jazakumullahu khayr waan rajeynaya inaad ka wada hesheen muuqaalka waad soo tijaabin doontaan biidni illaahi tacaala intaas ayuu ku dhayaa muuqaalkeeni maanta axbaabteeda maasha allah waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan jazakumullahu khayra assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh muuqaal kale oo xiiso badan oo inoo xigi doono muuqaalkan insha allahu tacaala